kadib colaado iyo diriiro muddo soo jiitamaysay inay daba socdeen heshiisyo iyo dadaalo bura oo ay sababeen colaado dhex taallay muddo beelaha wadada deegaanka ceelaf weyn ayaa maanta xal nabadeed laga soo saaray kadib gogol nabadeed oo maalmihii lasoo dhaafay ay salaadiinta guud ee somalilan wada dhigeen deegaankaasi kaasi oo xal nabad loogu dhex abuurayay beelaha wadadega deegaanka ceelaf weyn kaasi oo muddo dheer ay colaadi dhex taalay salaadiintan ayaa maanta soo gunaanaday colaadaasi iyadoona ay gacmaha isu saareen labadaasi beelood islamarkaana hubkii iyo diriirtii gogoshaasi ku soo afmeerantay haddaba arrintaas ayaa waxaa isla maanta ka hadashay xukuumadda somalilan iyadoona ay bogaadisay hanaanka ay salaadiintu u soo gunaanaday diriirtii muddada socotay ee deegaankaasi mugdiga gelisay islamar ahaantana beelaha wadadega deegaankani ceelaf weyn muddada dheer dextaalay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga somalilan mudane maxamed kaahin axmed oo weheliye wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ana afhayeenka xukuumadda maxamed muuse diiriye oo maanta gudaha magaalada hargeysa warbaahinta kula hadlay ayaa bogaadiyey hanaanka ay salaadiintani u soo afmeereen ee diriirtii iyo colaadii dhex taalay iyagoona ay sheegeen ka xukuumad ahaan ay adkaynayaan amniga iyo sidoo kale inaanay dib u soo noqonin colaadaasi beelahaasi dhex martay muddada dheer iyo nawaaxigeeda ugu ambabaxay labada dhinac ee muddada arrintaa shaqaaqadii ay dhexdooda ka socotay halkan waxay kula sii shireen xukuumadda waxay kula sii shireen deegaanadooda waxay kula sii shireen iyaga dhexdooda maxaanku dhahdaa iska wada shiray ka wuxuu ka furmay shirkii magaalada ceelaf weyn si aad iyo aad u qurux badan oo walaalnimo leh oo sokeeyo leh oo tol iyo xidid leh oo deegaan leh ayaa saaka shirkoodii ay u fureen go'aamo rasmiyan oo maxaanku dhahdaayay lagama maarmaana oo midho dhal ah oo dhaxalgalana ay uga soo jeediyeen maanta halkan waxaynu ognahay waxaa ku shiraya dhammaan golaha wasiirada oo dowladda jamhuuriyadda somalilan madaxweynuhu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasiirada waxaa go-aan lagu qaatay in la hambalyeeyo anigoo ku hadlaya magaca golaha wasiirada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa oo u bogaadinaynaa oo u baarigaynaa maxaanku dhahdaye qaraarka ay soo saareen labada dhinac waan ku berber taagannahay waan idinkula jirnaa waan idinku xoojinaynaa aad iyo aad baynu uga shaqaynaynaa nolosha ayaa waxayna faraysaa meeshay nabadi taallo ayaa nololina taalla oo horumar yaallaa oo bulshada guud ahaantii iyo gaar ahaan inta maatada ahee jilicsan ay dantoodiiyo noloshooda ku jirta waanu idin hambalyeynaynaa waan idin bogaadinaynaa waxaanu leenahay hambalyo waa idinku bogaadinaynaa hawsha ay haysaan waa tii loo baahnaa waa tii ay ku jirtay danta dadka wada degee walaalaha ah danta qaranka iyo guud ahaanba waxaanu leenahay halkaa hawshu waa intaasoo ugala sii dhowaataan aad tuutaha u xidhataan ha guntiga u giijsataan u soo jeedaan oo sida ugu dhaqsaha badan leh ee ugu muxuu ahaa habboon aad hawsha inooga soo gabagabaysaan hawshaasi runtii ummaddii iyo walaalihii meesha wada degayay way riiqday dadkay ka reebtay dowladdana way ragaadisay waxaanu leenahay raganimo ayaad muxuu ahaa maanta u badheedheen ood ballan qaadeen hawsha inaad soo afjaraysaan Soomaali Cabdi Axmed Karile Kalsan TV Hargeysa